cidna ma ogola in xogteeda gaarka ah iyo fariimaheeda khaaska ahba ay cid kale ogaato ama la wadaago. waana sababta dhalisay in dad gaaraya malaayiin ay ka guuraan WhatsApp-ka una guuraan application cusub. ku soo dhawow aqoon doon channel. haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqanayso channelkan, fadlan subscribe dheh oo taabo gambaleelka, like-na saar muuqaalkan, lana wadaag asxaabtaada si ay u helaan warbixintan. mahadsanid. sida aan ka warhayno, hadalhayn badan ayaa ka jirta baraha bulshada oo ku saabsan application-ka WhatsApp. sanad walba cusub waxaa update ama wax ka bedelid lagu sameeyaa aaladaha loo adeegsado baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo Instagram. balse update-kan cusub iyo wax ka bedelkan lagu sameeyay application-ka WhatsApp ayaa sababtay in users ama isticmaalayaal badan ay ka guuraan WhatsApp-ka, taasoo dhalisay in WhatsApp uu waayo malaayiin isticmaalayaal ah. siyaasadda cusub ee uu WhatsApp-ku la yimid sanadkan ayaa noqotay mid u cuntami weysay isticmaalayaashii ku xirnaa WhatsApp-ka. sababtoo ah fariimahaaga, nambarada aad ku isticmaasho WhatsApp-ka, sawirada aad dirto iyo location-kaaga ayaa la wadaagi doonaa Facebook. arrinka kale ee la yaab kale ayaa ah in haddii aadan agree dhihin oo aadan ku raacin siyaasadda cusub ee uu WhatsApp-ku la yimid, in 8 bishan soo socota ee labaad uu WhatsApp-kaagu istaagi doono. haddaba warbaahintu maxay ka tiri arrinkan? aan soo qaadano kuwooda ugu caansan ee ka hadlay arrinta muranka badan dhalisay ee ku saabsan WhatsApp. wargeyska Independent ee laga leeyahay waddanka Ingiriiska ayaa yiri sidan: WhatsApp-ka shuruudaha iyo khusuusiyada cusub muxuu kaaga dhigan yahay adiga? sidoo kale wargeyska Business Insider ayaa qoray in milyaneerka caanka ah ee Elon Musk uu yiri ama uu ku tilmaamay arrinkan mid aan marnaba la aqbali karin. wuxuu dadka kula talinayaa in loo guuro applicationada sida Signal iyo kuwa kale ee la midka ah. sidoo kale Al Jazeera waxay ciwaan ka dhigtay waxaa bilowday in laga guuro WhatsApp oo loo guuro application-ka Signal. waxayna intaasi raacisay muran badan ayaa ka dhex taagan bulshada maalmihii la soo dhaafay. sidoo kale BBC-da waxay leedahay waa maxay siyaasadda cusub ee WhatsApp-ka? waa maxay farqiga u dhaxeeya WhatsApp iyo Signal? haddaba waxaa laga yaabaa su'aal weyn inaad isweydiinayso oo ah waa maxay macluumaadka laga helayo anigoo ah hebel ama heblaayo? haddaba waxaad ogaataa in WhatsApp-ku uu share gareyn doono wax walba ku saabsan xogtaada khaaska ah sida nambarkaaga, IP address-kaaga iyo nambarada kugu jira dhammaan. waxaad haysataa laba khiyaar oo kala ah inaad agree dhahdo oo aad ku raacdo siyaasadda cusub ama inaad ka guurto WhatsApp oo aad u guurto applicationada sida Signal iyo Telegram. haddaba macluumaadka uu WhatsApp ku aruurinayo waxaa ka mid ah sidaan soo sheegnay nambarkaaga, sawirka kuu saaran profile-ka, gruubyada aad ku jirto, waxyaabaha aad ka hesho ee aad faafiso. kadibna waxay helayaan dhammaan macluumaadkan waxayna u keedsanayaan arrin inta badan la xiriirta howlo ganacsi, waxayna ku sameynayaan waxay doonaan. sidaa darteed WhatsApp waxaa soo wajahay khalkhal iyo cabsi fara badan oo ah inay waayi doonaan isticmaalayaal badan, waxayna soo direen fariin kale. haddaba maxay tahay fariinta cusub ay soo direen WhatsApp? shirkadda WhatsApp ayaa baahisay war qoraal ah oo ay ku sheegtay in propaganda iyo warbeen abuur ah laga sameeyay siyaasadooda cusub, waxayna ballan qaadeen in qof walba isticmaala WhatsApp-ka aan lagu xadgudbi doonin xuquuqdiisa, balse kama aysan noqon sharciga cusub ee ah in xogtaada WhatsApp lala wadaagi doono Facebook. haddaba dowladda Turkiga ayaa soo saartay bayaan cad oo ah in sharcigan cusub aan ka hirgeli doonin dalka Turkiga. ugu dambeyn, si dadka ay u ilaashadaan xuquuqdooda, nambaradooda, xogtooda gaarka ah iyo fariimaha ay diraan, waxay go'aansadeen inay gebi ahaanba ka guuraan WhatsApp una guuraan meelaha xogtooda lagu kaydinayo. applicationada ay u guureen waxaa ugu caansan 3 application ee kala ah Signal, Telegram iyo application-ka laga soo saaray dalka Turkiga ee BIP. haddaba daawade, ma tahay dadka ka guuray WhatsApp ee u guuray applicationada cusub sida Signal, Telegram iyo BIP? haddii ay jawaabtaadu tahay haa, qaybta comments-ka inoogu reeb iyo wixii aad dareentay markaad maqashay in xogtaada WhatsApp lala wadaagi doono Facebook. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqanayso channelkan,
fadlan subscribe dheh oo taabo gambaleelka, like-na saar muuqaalkan, lana wadaag asxaabtaada si ay u helaan warbixintan. mahadsanid.